dagaaladii ugu waaweynaa saxaabadu gashay waxa kamid ah xarb al-Qaadisiyya Ciraaq meeshan la yiraahdo ku taala Ciraaq waxa inteeda badan haystay Persia dawladda Iran ma ka talin jirtay caasimadoodii Madain waa Baghdad dhinaceeda kama foga maadaama ay ka talin jireen markii muslimiinta iyo nimankaas Iiraanta ee majuusiyiinta dagaaladu dhex marayeen dagaaladii ugu waaweynaa waxa kamid ah dagaalka Qaadisiya dhowr boqol oo kun oo gaala iyo 30 kun oo saxaaba ay sortaagan iyo intii la socotay saxaabada waxa hogaaminaya 10 mubashiriin kamida Sa'd ibn Abi Waqqas baa ciidanka wata qolada kalena waxa hogaaminaya nin Rustam la yiraahdo jananadoodii waaweynaa laga dambeeyay kamida marka Rustam wuxuu rabaa bal nimankani mentally siday u fakarayaan inuu ogaado wuxuu Sa'd weydiistay inuu u soo diro cid wada hadal bal u dhexmaro nin baa loo diray uu soo celiyay mid kale bal ii soo dir waa loo diray saddex nin baa kolba mid u tagay saddex saxaabi ee kolba mid u tagay مثلا mid kamidun hadaynu soo qaadno Ribci ibn Amir baa kamida ninkani wuxuu rabay inuu hanjabiyo saxaabada tan oo uu tilmaamo waxaan soo saaray gaaja iyo dhaqaale doon haday tahay inaan dhaqaale bixiyo marka sariirtii boqortooyada meel la dhigay dabeetana red carpetska ayaa la waday dhulaadu ballaaran ninkan muslimiinta ka socda fars yaro gaaban buu wata waan intaas oo bilood dagaal ku soo jiray دنين أي كم وغطاء أدون يودل دلالكي معها ربيع بن عامر وفرس يرو قابون وطا صباحي دبتنا مركو سوق قاعدين ماشي ودي بيسكسو دول اريا فرس كيسي كبد دقيني هي علماء التاريخ شاقا بركي مو ينكي ماشي تتصنا متكمدو فرس كو حدا دبتنا وكسور دعو حقو صور دعو حي دادين بقر كسان لو ما تقو هوب كديك بقر ادو هوب سيتا لو ما تقو wuxuu yiri boqorku isaga ay yeedhay anigu uma rabini haddaan rabtaana sidaydan baan ugu tagayaa haddaydan rabina waska noqonaya boqorkii waa loo sheego waxa la yiri Rustam ninkii wuxuu leeyahay anigu idinka ay yeedhay ma hubkaygan galaya ama waska noqonaya soo daayay buu yiri ma hubkiisa soo daayay isaga wixiisi tu soo galay su'aal baa la weydiiyay markaa ma jaa bikum war maxay idin keenay أبارية قاعدة دبيو بلايا كسر محايد كاني سحاري وقت معده وحقوق جوابي الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام إلهي بأن سوى بحيه إن